marka waxaan rabnaa maadaama aan ciidan nahay furin aan joogno marxalado kala duwan aan soo marayno inaan cabsida ilaahayna aan iskala hadalno as-sam'u wad-daa'a iskala hadalno difaaca ku jirtaan fadliga uu leeyahay nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaala unabiikum bilaylatin afdala min laylati alqatri alaa wahiya xaarisul xarasi fii ardin khoofin lacalahu allaa yarjaca ilaa ahlihi war ma idiin sheegaa habeen ka fadli badan laylatulqatriga inaa anzalnaahu fii laylati alqatri wamaa adraaka maa laylatulqatri laylatulqatri khayrun min alfi shahri soomeen habeenkii laylatulqatriga la yidhaahdo ramadaanka ku jirto 1000 bilood ayay ka fadli badan tahay habeenkaasna waxaa ka fadli badan hal habeenaa ka fadli badan oo ah alaa unabiikum bilaylatin afdala min laylati alqatri alaa wahiya xaarisul xaras waa habeenka waardiyaha uu qabanayo askariga waardiye ah habeenku waardiyaha qabanayo oo ku qabanayo dhul cabsi ah oo laga yaabo ehelkiisu inuu soo nabad qabo usan u laaban oo sida idinka aad tihiin oo kale ah halkaas habeen waardiyaha askariga qabta ayaa ka fadli badan 1000 bilood oo laylatul qadri ka fadli badan ayay ka sii fadli badan tahay ina marka habeen walba aad waardiye qabato aadan ogeyn fadliga ay leedahay soo nasiib darro noqomayso waxa la rabaa waardiye qabanaysaan inuu fadli gaara iyo ajir gaar inuu leeyahay sida uu nabigeena noo sheegay kaleey salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ina ogaataan waardiye u tartantaan al rabaa waxa la rabaa habeenada xilliyada dambe oo rubucu leelka ah oo ilaahay malaa'igtiisa soo dagayso oo ay leedahay yaa loo dimba dhaaf rabo oo naxariista ilaahay ay guureyso xilligaas markay waardiyaha kugu soo aado waliba adigoo weyse qab hadaad waardiye qabato wardiga afka ku qabato oo ilaahay dalkan u weydiiso inuu nabadgelyo siiyo ducada ilaahay waa aqbala sababta qof muslimaad tahay oo xilligaas soo jeedo waxaan rabnaa marka waqtiyadeen inaan ka faa'iideysano u baahna waa markii waardiyaha iyo waajibaadka laga leeyahay ajirka laga helaayo marka ka hadalno marka u soo laabano khawaarijta la dagaalamayna nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay hum shiraar ummati yaqtulum khiyar ummati ummadeydu kuwa sharta badan waa khawaarijta kuwa ugu akhyaarsanna waa kuwa la dagaalamay akhyaaradii khiyar ummati ummadda nabi maxamed kuwa akhyaarsan inaad noqotiin kaleey salaatu wasalaam oo aad khawaarijta oo ummadda nabi maxamed ugu sharta badan la dagaalantaan idinkana aadan fahamsanaynin oo waardiyaha qabanaysa dib in ku yahay suurtagal ma noqonay laba fadleysatiin marka khiyaarada ummadda nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waardiyaha habeenka la qabanayna waardiyii wix la qabta laba indhood nabiga wuxuu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam inay cadaabta taaban isha ilaahay dartiisu oyso ayaa quraanka ilaahay loo akhriyay qulubtaas nuuxsato oo ilaahay uu leeyahay innamal mu'minuuna alladheena idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum iimanan marka aayad quraan loo akhriyo marka iimaankaaga u siyaado oo qalbigaaga lusho oo ooyin ay ka timaado ishaas ooyinta ka iimaanayso ilinta ka iimaanayso oo ilaahay dartiis uga iimaanayso qiyaamaha marka la tagaa cadaab taawame isha labaadna waxay tahay isha waardiyaha hayso oo soo jeedo wuxuu nabiga noo tilmaamay kaleey salaatu wasalaam inaysan cadaabta ilaahay taabanin intaas oo fadli haleeda xiradan sidaan ka warhay dugsi quraana ka furan macallimiin sharaf laha joogto waxaan rabnaa in salaad ilaahay qofkan aqoonin in salaad iska dukala ma rabo salaad wuxuu baan tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam nima ku dukada gab u dha duko dhama aan dukana waa soo laabay duko ma aan dukan u dha salaada waajibaad leedahay waxay leedahay sunan ay leedahay sunanka waxa laga tagaa muxuu laakiin waajibaadka salaada ay leedahay ay ku ansixisay qof walba inay taqaanaan raba laakiin ina gab iska tiraa oo jinaabadii maalinta qaan gaaris ku gashay isaga ka jirto suurtagal maahane sida janaabaadka loogu qubaysto sida xoohay waajibaadka loo ilaaliyo sida xoohay salaada hadii salaada xitaa lafteeda hadaad xanuunsan tahay ka dhicime fadhiga ku dukanay jiifa ku dukanay isha ka dukanay farta ka dukanay salaada ilaahay intii qalbigaaga u joogo aqli aan leedahay marnaba ka hirimayso soo xalay yaqaana diinta islaamka oo naxariista ah ayay wax u bedeleen diin argagaxiso ah oo laga cabsado oo qofka diintaas sheegtaba magac kale loogu dhajinayo maanta hadda saana u wada joognaa annaga ciidana ma cadow waa leena masaajidkaas jannaal ku yaal masaajid ku tal jannaal mid kamida maanta hadda in daris ka dhigto ama aad daris wato aad ku ordo tir Allahu akbar daatira hal qof masaajid ku herimayso Allahu akbar diinta ay ku dheeshaa ilaahay weyn Soomaa ilaahay weyn yaa tiin baraha halista ah oo dangerous-ka ayaa u yeelay soo shabaab ma yeelin dadka noocaasa way ka sharbadeen marka gaalada noocyada kala duwan sababtoo gaalka wuxuu adiga ku dilaa in adiga muslim tahay oo ku dilaa adiga askariya tahay qoriyo boosha wadata
inaad askari difaac joogo hal saac ku xisaabtama 2 saac inaad noqono aad ku fikirtaa la rabaa sida ummadda Soomaaliyeed goob kasto oo ummadda Soomaaliyeed laga dhibaateynay si u badbaadi lahayd caawa daa seexato tiraado salaatul leelan dukana oo qalbiga gashato seexato ee ka tagto adoo dukatay kula mid tahay adiga marka jannaal ina xoreynaysa ina jannaal amnigeeda sugaysa kaliya ku fikirin in Soomaaliya geeska gees aan nabadgeli ka dhigaysa qalbiga gasho hadduu Ilaahay ku sirta gelino faliya alxamdu isku sirta gelina adigu xuriy kula mid tahay niyatul mu'min khayr min amalihi nabiga yiri alayhi salatu wasalaam qofka mu'minka niyadiisa ayaa ka khayr badan amalku sameeynay qalbigan keenaa la rabaa inuu waasic noqdo oo khayrka ka buuxsamo la rabaa qof kasta oo Soomaali ah ayaa idinka idin fiirsato qarannimada Soomaaliya ka tarjumaysaan waxaad badbaadinaysaan qof muslim in la badbaadiyo wax ka qiimo badan ma aha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jamii'an qofkii qof badbaadiyo wuxuu la mid yahay dadka oo dhan soo badbaadiyo qofkii qof dilan wuxuu la mid yahay fa ka'annama qatala an-nas jamii'an asoo dadka oo dhan laayo la mid yahay marka badbaadinta aad haysaan hal qof marka badbaadisaan maanta oo miina meel la galshay aad ka soo bixisaan oo cadow soo weerartii rabo dad dhibaato rabo aad la dagaalantaan dadka oo dhan idinku badbaadiyay la mid tahay marka waxaan rabnaa waxay tahay fadliga noocaas anagoo la inay haddana salaadeena ama cibaadaadkeena kale oo ay kamid tahay in madaxda la adeeco inay gebgeb naga tool lama rabo waxa la rabaa wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu midnimada ayaa asalka wax walbaba unugta aad ka tirsan tahay hadii kugu tilmaama nin wanaagsan inaad tahay ay ku jeclaystaan oo marka dhimato leeyahay hebel nin qiimo badan oo ahlu jannata hadii ay kugu tilmaamaan niman fiicin inaad tahana faraq kugu jirto sababtoo ah intan qofood baadil isku raacimayso la tajtami'u ummati ala dalala nabiga alayhi salatu wasalaam ummadayda baadil isku raacimayso wa ilaahay ku dhaariyay wuxuu nabi maxamed tamani alayhi salatu wasalaam haddaan haysano soo waajib nagu ma ina ka faa'iideysano haddaan haysano waxdaad dishaad ahlu janno ku noqonayso oo hadii ku dilan ahlu janno ku noqonayso oo yiri nabiga alayhi salatu wasalaam duuba liman qatalahum oo qataluhu laanta janno u sugnaatay qofkii dilaan ay dilaan oo aanan qabrigin xoohay madoobay aana tigin oo miisaankii iyo xoohay xisaabtii Ilaahay hortigin oo aan la gaarin yawma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi maalin waxa jiri doonto qofka ka carari doon hooyadiis aabihiis walaashiis saaxibtiis qof walbana likulli imrin minhum yawma sha'an yughnihi maalintaas qof walba dib ayada gaar u ah ayaa haysto maalintaas intaan la gaarin adduunka aad joogno jaanis haysano neefseeno caafimaad qabno inaan salaad Ilaahay laazimno balan ma nugu taa waxaan rabnaa marka waa duceynaynaa hadii Alle waxaan rabnaa marka waxay tahay salaada Ilaahay ayaa qofka wanaagsan ayaa lagu gartaa salaada Ilaahay ayaa qofka laga qiimeeyaa hadii salaadaha ku toostana cibaadada kale waa ku toosay waxaan rabnaa marka Sheekh Yusufna waa jooga iyo saraakiisha kale maanta waxaan rabnaa inaan balan wada galno oo ah qof walba oo halkan fadhiyo inay salaada Ilaahay inta ay noosha inay ku dadaalayso balanta ma qaadi kartiin ina salaad Ilaahay ku dadaalayna manugu wallahi ba manugu billahi ba manugu tallahi ba aad ma santiin tawfiiq lana waafajiyo dimbigana la dhaafo kii waalidkana la dhaafo kii macallimiinta la dhaafo dalkeena xur la nooga dhigo Soomaalina Allah mideeyo adaguna Allah naga qabto